ereyga ku xiga waa kilobyte ama kb. waa unit of measurement ama unit of measure, waa unit ama halbeeg wax lagu cabiro oo size xogta computerka lagu cabiro equals to iyadoo la eg 1024 byte. hore waxaan uga soo aragnay GB oo GB wuxuu dhigmaysaa 1024 MB. markastoo aad 1024 byte haysatidna waxaad haysataa 1 KB. 1024 KB markaad haysatidna waxaad haysataa 1 MB. waxaa u dhexdhexeeya 1024 ka oo measurement ama cabir sidii GB-gii oo kale. waxaa ku xiga laptop computer. laptop computer waa a portable computer baa la yidhahdaa ama personal computer, dhowr magac buu leeyahay. oo laptopyadana caadiga aan isticmaalo wixii aan ahayn desktop. desktopka isaga waxaan kusoo sheegnay inuu yahay stand alone ama wax meel keliya yaala, masalan miis oo kale uu saaran yahay oo lama qaadi karo. laakiin laptop computerku muxuu yahay? waa portable isagu oo dhinacii aad rabtid ayaad u qaadan kartaa. waayo ereyga ku xiga waxaa la yidhahdaa malware. malware waa qayb ka mid ah fayrasyada computerka gala. software that intended to damage or disable data on computer. software damage ku sameynaya ama disable ka dhigaya oo joojinaya wax la yidhaahdo datadii computerka kugu jirtay. marka waxaan maqalnaa computer virus baa iga galay. virusku laakiin siduu shaqeeyo badan kama naqaano. virusku wuxuu damage ku sameynayaa marka koowaad ama disable kaaga dhigaya xogtii computerka kugu jirtay. tusaale ahaan files baad haysatay, meel documents baa ku yaalay, virus baa galay, own code buu ku filinaya. tusaale ahaan waxbaad furaysaa, wax kale kuu soo baxay ama xogtii mabajtaalo ku dhacay oo dhiliyaday. malware waa qayb ka mid ah viruska computerka gala. ereyga ku xiga waa megabyte ama MB, unit measurementsna ka mid ah computerka waxyaaba lagu cabiraa. wuxuu la mid yahay KB-gii iyo MB-gii aan soo aragnay iyo GB-gii. ereyga ku xiga waa RAM. sidoo kale memory-na waa la yidhaahdaa. waa physical device that store data temporarily. physical device-ka ama device-ka adag ee taaban karo computerku leeyahay, kaasoo waxaa la yidhaahdo store sameeya, kaydiya datada si temporary ku meel gaara for quick access by computer program, si ay si fudud ugu soo galaan ama degdega computer programmadii aad u isticmaashid qofka userka. marka waa RAM-kii aan naqaanay ee computerka. ereyga wuxuu waa motherboard. waa hooyada computerka. waa circuit board taasoo ka kooban waxa la yidhaahdo meelo portsia computerka oo kaga xidhmaan peripheralada. marka haddaad rabtid tusaale ahaan computerka inaad USB gelisid, waxaad ku attach garaynaysaa motherboardkaaga, buu toos ugu xidhmaya. wax walba peripheral computerka soo gala meesha ay ku xidhmaan waa hooyada computerka. ereyga ku xiga waa operating system. OS waa software that support basic functions of computer. waa software support gareeya ama taageera computerka functionskiisa inuu qabsado caadiga ahaa ama shaqooyinkiisii caadiga ahaa, sida inuu execute sameeyo, uu kiciyo applicationskii ama uu daaro, iyo maxay inuu controlling sameeyo, uu ilaaliyo ama ka warhayo peripheralska computerka banaanka kasoo gelaya. operating systemku waa systemkii computerka ku shaqeynayay. windowskii weeye, windows 10, 7, 8 hadba kii kugu duuban. shaqada uu ku qabanaya waa maxay? computerkaaga wuxuu ka dhigayaa marka koowaad mid shaqooyinkiisii asaasiga ah qabsanaya. shaqooyinkiisa asaasiga waa fara badan yihiin. waxaa ka mid ah applicationskii inuu daaro ama kiciyo, sidoo kale inuu control sameeyo peripheralladii. computerka qudhiisana inuu kiciyo, qudhiisa buu qabtaa. PC baa yimi ereyga ku xiga. personal computer baa la yidhahdaa. typically used to indicate non-Mac computers. badanka waxaa loo isticmaalaa in lagu sheego ama lagu xaqiijiyo waxaan inuusan Mac ahayn. computerada Mac ah waxaan ahaynba waxa la yidhahdaa PC. computer Mac ah ayaa jira oo tusaale Apple-ka computeradooda oo kale. waa ereyga ku xiga waa processor ama waa CPU, waa central processing unit. waa primary component of computer. primary-ga ama qaybta asaaska component-ka computerka ka kooban yahay, taasoo process garaysa instructions computer ku qaadanayo ama sharciyada computerka. the CPU runs operating system and applications. shaqooyinka uu qabtana waxaa ka mid ah inuu running sameeyo, uu kiciyo ama ka shaqaysiiyo operating systemka. operating systemka waan soo aragnay wuxuu ahaa wixii computerka ku shaqeynayay. sidoo kale applicationskana inuu run gareeyo qudhiisa uu qabtaa CPU, central processing unit. ereyga ku xiga waa program. waa set of instructions that computer uses to perform particular operation. waa set of instructions la isku soo daray oo ka dhigaya computerka inuu shaqo qabto particular operation, shaqo gooniya inuu qabto.
sida waxa kamid ah Microsoft Word oo kale shaqooyinku inoo qabanaya waa maxay word processing program inaad wax ku qoratid computerkaaga marka program wax kasta oo ku sahlaya computerkaagi oo programka ku sahlaya inuu shaqeeyo operating system waxaan u jeedaa particular operation shaqo gooniya inuu qabto tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad xisaabi sidoo kale Excel baad isticmaashay waa maxay program wuxuu kaa caawinayaa shaqo gooniya inaad qabsatid oo ahayd xisaabin tusaale book baad rabtaa inaad qoratid Word baad isticmaashay program baad isticmaalaysa la yiraahdo Word oo ku qabanaya shaqo gooniya oo ah inuu wax ku qoro ereyga ku xiga solid state drive ama SSD hore waxaan uga soo hadalay HDD oo ahayd hard disk drive hardware computerka kamid ahayd qabanaysayna inay wax kaydiso informationka computerka SSD du qudeedu waa cajlad kale oo computerka loo isticmaalo for storage in ay wax kaydiso laakiin waxay kaga duwan tahay xogaa xagga xawaaraha oo ka yara sareysa oo xawaara sareysa HDD da computerka SSD ku jirtaa uu ka xawaara sareeyaa computerka HDD da iyadoo qudeedu waa piece of hardware in a computer that stores data oo qayb kamid ah computerka hardware-ka taasoo store sameysa ama kaydisa data such as programs programmada ama user created fileska qofka uu sameystay oo kale shaqadii HDD da ereyga ku xiga terabyte qudhiisu waa measurement ama waa cabir computerku isticmaalo oo lamid ah GB-gii aan soo aragnay MB-gii waxyaabaha noocaas USB baa timi waa universal serial bus USB waxaa loo isticmaalaa waa computerka lagu xidha connecting peripheralska tusaale ahaan mobile oo kala rabta inaad computerka wax kaga qaadatid USB baa isticmaalaysa marka waa xadhiga caadiga aan computerka gelino si aynu xog uga shubano oo kale tusaale ahaan ama u gelino ereyga ku xiga waa virus virus iska garanaysa isagoo waa malicious software waa software xun oo computerkaaga ka dhigaya disable oo kale ama xogtaadii ka baabi'inaya waxa la mid ah ereygan soo aragnay malware shaqooyinku wuxuu u qabanaya shaqadiisa inuu replicate sameeyo itself by modifying other computer programs inuu isagu modify ku sameeyo ama wax ka bedelo computer programski kadibna uu geliyo ama insert its own code isagu code uu leeyahay uu geliyo kadib xogtaadii ay noqoto mid aan shaqeynayn ama wax la yiraahdo mid baaba'san oo kale ereyga ku xiga waa HDMI or digital interface specification for delivering digital content and connecting customer electronic device HDMI waa xadhiga caadiga ah digitalka computerka lagu xidho si wax la yiraahdo tusaale ahaan shaashad oo kale aad ugu xidhid computerkaaga aad halkaa wax uga akhrisatid header baa yimi header macnayaal fara badan bay leedahay marka computerka la joogo mar waxay noqotaa formatting style design sida halkan inoogu jirto oo kale HTML-ka dadka hore u arkay baa garanaya HTML-ka wuxuu isticmaalaa heading 1 2 3 ilaa 5 waxaa loo isticmaalaa marka ciwaanada in lagu qoro tusaale ahaan ciwaan waaweyn baad rabtaa inaad qortid heading 1 baa isticmaalaysa si lamid ah Word-ka oo kale markaad qorisid heading-nada uu leeyahay header-na waxay noqon kartaa xagga sare ee page-ka waxyaaba fara badan laakiin halkan waxay ku jirtaa waa formatting style oo HTML ku leeyahay waa H1 H2 dii HTML ku lahaa ayaa halkan ugu jirta ereyga ku xiga waa headset waa combination-ka marka la isku daro earphone iyo microphone waa qalabkan madaxa gashan ee earphone-ka isku jira oo kale taasoo qabanaysa ama enable sameynaysa free communication gacmuhu free ka yihiin wada xiriirin u dhaco adigoo aan wax gacana aan u geynin tusaale ahaan halka aad joogin computerkaagii maamuli kartid wadii hadal noqotana microphone-ku ka caawinayo inuu hadalkii gudbiyo dhageysina headphone-ki waa dhagahan madaxa sare la gashto ee ka kooban headphone-ka iyo microphone-ka waxa la yiraahdaa headset way HTML baa yimi HTML waxa loo soo gaabiyay hypertext markup language waa luqad loo isticmaalo for creating websites in lagu sameeyo website-dada ama world wide web-ka pages-ka internet-ka in lagu dhiso waxaa kaloo jirta HTML file waxay ku kala duwan yihiin mid waa luqadii midna waa maxay waa shaygii markii aad sameysay oo kale tusaale ahaan HTML baan qoray waxaan rabaa inaan page sameeyo .html baan ku save garay email buu yaala kaasoo kale wuxuu noqonayaa HTML file marka aan furayo waa HTML file laakiin waxa uu ku qoran yahay luqad waa maxay luqad waa HTML midna waa shaygii lagu sameeyay midna waa maxay luqadii guud erey ku xiga waa image file waa file containing graphics image file waxa la yiraahdaa file ka kooban graphic
graphic waa maxay wixii aan qoraal lahayn tusaale ahaan sawir oo kale ama waxyaaba isku jirjiro oo kale waxaa la yihahdaa graphic. IP address baa yimi waa internet protocol address, a unique number assigned to any computer connected to the internet. waa number gooniya oo unique ah oo lagu sameeyo qof walba markuu internetka soo galo la siiyo. tusaale ahaan computerka internetka isticmaalaya maxaan haystaa IP address gooniya, mar allaala markaan ka baxo IP addresskaygii qof kale la siinaya. marka waa maxay computer kasta oo connected to the internet ah ayaa la siiyaa IP addresska. Antivirus program baa yimi, ereyga ku xigaa waa maxay hore waxaan usoo aragnay virus. Antivirusna waa kii viruska baabi'inayay, waa software that removes virus from your computer, waa software ka saaraya viruska computerkaaga. AdSense baa timi. AdSense waa Google product, waa adeeg Google ku leeyahay that allow you to advertise Google ads on your website, taasoo kaa caawinaysa inaad xayeysiis samaysatid website-kaaga u samaysatid, page-kaaga u samaysatid adigoo Google-ka dhex marinaya. Back-end saan ognahay waxaa jirta laba waxyaabood, mid la yihahdo back-end iyo front-end. Back-end waxaa la yihahdaa waa administrator point, qofka adminka ah daaqada uu systemka ka maamuli karo. tusaale ahaan waxaan aragnaa website-o qurux badan xaggooda hore un baynu arki karnaa, laakiin back-endiga ama qeybta codeka waxaan lagu dhisay qofka administratorka keliya ayaa arki kara. laakiin inta adiga ku muuqanaysa tusaale ahaan iminka waxaan isticmaalaynaa Adobe Reader baan halkan ku akrinaynaa. tusaale ahaan calaamadan oo kale waa maxay, waa soo dhaweyn, tan waa minus, kan page-kaad ka geynaysaa, laakiin adigu wax code ma aragtid, keliya waxaad aragtaa maxay icons aad taabanaysid. Iconskaas adigu front end ahaan baad u arkaysaa sababtoo ah administrator ma tihi, laakiin qofkii code-kan dhisay hadduu website yahay hadduu program yahay isagu muxuu u dhisay ahaan code. marka waa maxay back end xagga dambe ayuu ka arkaya. ereyga ku xiga waa maxay MAC address, waa unique number ka kooban nambaro ama dhibco any network device-na uu leeyahay. tusaale ahaan computerkaaga, mobilekaaga, wax allaala wax electronic oo jiro oo dhan waa number u gooniya oo ay leeyihiin. maxay ku kala duwan yihiin baa su-aala IP address iyo MAC address. IP address mar walba ood internet soo gashid computerkaaga ama mobilekaaga kasoo gashid waxaa lagu siinayaa IP address gooniya, markaad ka baxdidna maxaa la sameynayaa waa lagaala noqonaya. laakiin MAC addressku system wuxuu ku samaysan yahay device-ka aad markaa haysatid